waddanka Australia laba bilood ka hor ka imaadeen ma ka yarba reer Soomaaliyeed oo isqabtay baa maqlay inaan magaalada imaado waanu tagay guriga noogu tagay waa labadooda kaliya aniga saddex nasari Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri sabarkayga rabaa inaan ku sheego Abu Talha wuxuu yiri maalin maalmaha kamid oo aniga iyo reerkayga iyo carruurtayda qada u fadhino labiskii xafiis buu leeyahay xafiiskiisii anuu labiskii qabar ayaan qadari bilaabay buu yiri islaantii laba fiiloo ba istaabatay jikadu ma gashay 2 litir oo caano ah ayay soo qaaday intay furtay madaxayga soo bilaabay ilaa 2 litir ee caanaha ugu dhamaysay carruurtii way saseen dabiicad xumadeedana way yaqaaneen go'aano fara badan baan qaatay buu waxaan soo go'aansaday maanta inaan carruurtayda u heliyo xaaskaygana qulubteeda aan ku beero jacayl run ah oo dhab ah ayaa waxaan iigu yiri aabe ma la yaabantihiin hooyo waxay samaysay hal mar bay farxeen inaan hadlayba oo caadi ah normal ah ana idin sheegay horta dar alle ku taga hooyadii meeqa sanaan u isqabnay 25 sano dheer ninkii la dhalay fadhiya wuxuu yiri horta sanad guuridii 25 baan gaadhnay waa ko haddaan Soomaali nahay Soomaha qofka ugaaska iyo malaaqa iyo wabarka markaanu doonayno inaanu caleemo saarno caalam ku shubna saadaradeed hooyadii waa qof aqli badan oo waxay maanta dooratay reerkii oo waxba ka maqnayn oo qadaynaya oo fadhiya inay idin sheegto inaan madaxweynihii reerka ahay inaan boqoranahay inay idin sheegto